soo dhawow waxaa jira waxyaalaha haddii aad naftaada kusoo kordhiso ama kusoo darto ka dhigaya mid fudud kuuna hagaajin doona waxyaalo badan waxaan idinla wadaagayaa 4 waxyaabood nolosheeda ka dhiga mid horsocod leh iina fududeeyo howlo badan waxaana hubaa haddii aad noloshaada kusoo darto ka dhigayaa mid fudud haddii aan ku bilaabo shayga ugu horeeyo waa learning new things barashada waxyaalaha cusub markii aad wax cusub barato waxaa kuu kordhaya cilmi cusub kasoo qaad haddii aad barato xirfado cusub noloshaada waxay u furi doonaan wadooyin aan horay kuugu furnayn waxay kuu sahli doonaan jaanisyo badan inaad ka hesho suuqa maanta aynu joogno shayga labaad ee nolosheeda kor u qaada waxaa ka mid ah reading books akhrinta buwaagta waxay dhisaan maskaxdaada waxay koriyaan maankaaga haddaan soo koobo akhri buwaag badan si uu kugu siyaado cilmi aadan horey u aqoon shayga saddexaad ee nolosheeda fudeed ka dhigay waa English haddii aadan maanta English aqoonin waxay ka dhigan tahay inaad wax badan dambayso English waa furaha nolosha haddii aad rabto inaad ajaanib la hadasho haddii aad rabto inaad safarto iyo weliba haddii aad rabto inaad online wax ka iibsato everything waxay kaaga baahan yihiin luqadda Ingiriiska midda ugu dambayso oo afraad oona aatan ugu muhiimsan waa good habit lahaanshaha dabeecad wanaagsan waxay kuu sahlaysaa inaad bulshada dhexdeeda ka samaysato connection ama xiriir sa u taqaan marka si aad bulshada dhexdeeda magac iyo maamuus uga yeelato waxaa ku dadaashaa inaad lahaato dabeecad wanaagsan oo qof walba kugu marxabeyn karo ugu dambeyn waxaan jeclaystay intaas inaan idinla wadaago soo dhawaad Atom Graphics haddaan uga xubtaan soo follow gareey haddaa horey noola joogto muuqaaladii like dhasiina share gareey si asxaab badan adoo kale uga faa'iideystaan waa mahadsantahay